gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland iyo waliba garsoorayaal ka socda maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta socdaal ku soo gaaray magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkaas oo ay yimaadeen sidii ay kiisas uga qaadi lahaayeen maxkamadda gobol degme Gabiley ee magaalada Gabiley kiisaskaasi oo in muddo iyagu dib loo dhigay isla markaasina ay dadkaasi xabsiga ku xidhnaayeen ayaa hadaba safarka socdaalkaasi waxa looga warbixiyay gudoomiyaha maxkamadda sare Yuusuf Ismaaciil Cali iyo mid ka mid ah garsooradii la socday oo iyagu ka warbixiyay ujeedada socdaalkoodani ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxa barnaamijka bilaabmay ay maxkamadda sare iyo maxkamadaha rafcaanadu ku tagayaan gobolada waa barnaamij fudeydinaya dadka u dhaweynaya cadaaladda in dawladda qarash badan uga baaqanayo halkii xabis soo qaadi lahaa xabsiga dhexdiisa keenina dadka dhibani imada ay halkiisa gaadiid safar iyo qarash oo ka bixinay waxay noqotay inay maxkamadaha rafcaanada iyo tasaraba iyagu tagaan gobolada oo ay kiisaska ku dhageystaan go'aankooda ka yeediyaan marka arrinkan laabto waa arrin in daal soo jirtay iyo sanadaba arrin socotay weeye waxaana loogu nasteexaynayaa dadweynaha inay cadaaladda aan u dhibtoonin oo aan cadaalad noqon meel caasimadda ku xidhanta ee ay noqoto meel qofku intii suurtagala si hooyinkiisa degan oo deegaankiisii jooga inuu ku heli karo dhinaca kalena waxa waqti iyo kaydin dhaqaalaba way ku jirtaa iyada askarta qaadaysa maxaabiista booliska dadweynaha intaba hawlba wax ka baaqanaya dhaqaale waqti iyo dhaqaale lacageedmo qarashba u baaqanaya socodka iyo ku baaqanaya wala ana sii wadaya waxay u helinay maxkamadda sare oo maamulay shan xaakim oo maxkamadda sare garsooraha oo kale ayay u helinay maxkamadda sare oo maamulay halka soo baan hargeysa ka galay oo kiiska bulshadiisa saarno ku dhageysanay safarkan gudoomiyaha maxkamadda sare ah gudoomiyaha guddiga cadaaladda hogaaminayo wuxuu taagan yahay hawl shaqo oo la xiriirta dacwadihii ciqaabta ee xafiiska xeerantu oogay dhinaca ka waa soo maxkamadda sare maanta hogaamisay lagu dhawaaqo ayaan maanta ku nimid si dadka cadaaladda lagu soo dhaweeyana uu ahaa hawlaha ugu muhiimsan ee gudoomiyaha maxkamadda sare axmed gudoomiyaha cadaaladda lagu hogaaminayo intaasaan maanta mar hore la dhegeystay dacwadaha maanta waa go-aankii wax lagu dhawaaqaya kiisaskani ay qaadeen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsooradii la socday ayaa noqon doona iyagu kuwa kala socodsiiya kiisaska buuxdaafiyey maxkamadda gobol degme Gabiley ee magaaladaasi Gabiley waa maxamed xasan sheekh maxamed Shuba Somsa TV magaalada Gabiley.